شعبان waa bisha sideedaad ee taqwiimka hijriga Soomaalida qaarna waxay u yaqaanaan Shabcaan laakiin sida saxda ah waa Shacbaan waxayna kamid tahay bilaha booska weyn ka jooga islaamka maxaa yeelay Allah ayaa loo qaadayaa acmaasha qofka bini'aadamka uu sameeyo xadiis uu wariyay Usama bin Zayd ayaa wuxuu dhahay waxaan ku dhahay rasuulka Allah sallallahu alayhi wa sallam ma ku arkin bishan Shacbaan sida u sumtid bilaha kale wuxuu dhahay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waa bil ay dadka jaahilka yihiin una dhaxaysa Rajab iyo Ramadaan waana bisha loo rafciyo ama loo qaado qofku wuxuu sameeyo acmaashiisa ah rabbiga caalamka abuuray marka waxaan jecelaystay in amalkeeda Allah loo qaado anigoo sooman sidoo kale xadiis ay warisay hooyada muuminiinta Aisha Allah ka raali noqday waxay ku dhahaysaa ma arkin rasuulka sallallahu alayhi wa sallam bil uu soomid badan yahay bishan Shacbaan Bukhari ayaa wariyay sababta loogu bixiyay magacan Shacbaan khilaaf ayaa ka taagan taariikhyahanada dhaxdooda laakiin warkay u badan yihiin taariikhyahanada ayaa ah in carabta isku beesan jireen inay duulaano dagaal ay qaadaan markii ay dhamaatay bishii xurmada lahayd ee Rajab ay diidi jireen inay ku dagaalamaan kelimada Shacbaan sida ku xusan kitaabka Mukhtaar as-Sahah waxa lagu dhahay Shacbaan waxay noqon al-Shacb markii la miisaamo al-Ka'b ee micnaheedu waa qabaa'isha carabta iyo cajamta waxay ka faracmeen ama ay ka shacabmeen jamceeduna waa shucuub sidoo kale waxa loo yaqaanaa qabaa'ilka weyn dhacdooyinka xasuusan karno bishaan ee dhacay waxa kamid ah labada Shacbaan sanadka 6 ee hijriga kuna beegan December 607 miilaadiga waxa dhacay qaswada ama duulaankii Bani al-Mustaliq sidoo kale al-Muraysi' ayaa loo yaqaanaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa wuxuu maqlay in qabaa'ilkii Bani Mustaliq ay is aruursanayaan si ay ugu soo duulaan مدينة المنورة أرنتاس كدب أي النبي صلى الله عليه وسلم وحو كل مية مسلمينتي أنت لو سو دولن أيو كورتي عدوي ربي المجال وكسو دولو وحنا دجال كان وكدعي ماشي بيها المريسيع mana ahan dagaal waqti badan qaatay muslimiinta kaliya hal qof ayaa ugu shahiiday meeshaas ayuuna Allah ugu gargaaray nabigiisa cadawgii dhagartoodana uu celiyay muslimiintana guul weyn ay ka gaareen dagaalkan Allahna uu fashilay munaafiqiin badan oo ku dhex jiray safka muslimiinta oo rabay inay kala geeyaan sidoo kale muslimiinta qaniimo fara badan ay ku heleen dagaalkan dumar badan oo cadow ka mid ahna ay ku soo qafaashteen ay ka mid tahay hooyada muuminiinta Juwayriya bint al-Harith oo ahayd gabartii hogaamiyay qabiilka Bani al-Mustaliq Harith bin Dirar ugu dambeena uu nabiga guursaday si uu u soo jiito qalbiyada qabiilkeeda si ay u muslimaan sidoo kale asxaabtan isaga xurayaan dumarkii ay soo qafaashteen waxaana dhacay sidoo nabiga rajeynay muslimiintana way iska xurayaan dadka ay soo qafaashteen sidoo kale arintaasna waxay kaliftay in qalbiyadooda uu galo iimaan ayna soo muslimaan qabiilka Bani al-Mustaliq arintaasna waxay ahayd guul weyn oo muslimiinta u soo hooyatay sagaalka Shacbaan sanadka 932 hijriga kuna beegan 21 May 1526 miilaadiga suldaanka muslimiinta Babar Shah ayaa wuxuu ka guuleystay ciidan aad u badan oo Hindi ah oo ka kooban 100,000 dagaalyahan iyo 1,000 maroodi dagaal loogu magac daray Banibat midaasoo socotay kaliya 7 saacadood sultaan Babar Shah wuxuu ka soo jeedaa qowmiyadda Timur oo Hindiya dawlad islaami ah ka asaastay ku dhawaad 3 qarni tobanka Shacbaan sanadka 12 hijriga kuna beegan 20 Oktoobar 633 miilaadiga waxa dhacay dagaalkii al-Husayd ay isaga hor yimaadeen ciidamadii muslimiinta oo hogaaminay al-Qa'qa' bin Amr iyo kuwa Farisiyiinta dagaalkaasna waxa guul weyn ka gaaray muslimiinta Farisiyiintiina ay ka carareen goobta dagaalka kadib markii la dilay hogaamiyahooda Ruzabah 3 Shacbaan sanadka 15 hijriga kuna beegan 6 November 636 miilaadiga waxa dhacay dagaaladii ugu waaweyn ay muslimiintu ku furteen dhulka Ciraaq waxayna dhexmartay ciidamadii muslimiinta oo hogaaminay Sa'd bin Abi Waqqas iyo imbaraatoriyadii Farisiyiinta oo hogaaminay Rustum wuxuuna dagaalkan ku dhamaaday guul weyn ay muslimiinta gaaraan iyo in la dilo hogaamiyihii Farisiyiinta Rustum dagaalkan waxa isku soo beestay imbaraatoriyadii Saasaniyiinta ee Farisiyiinta ahayd oo hogaaminay isdajirka saddexaad ee imbaraatoriyadii Byzantiniyiinta ee Roomaanka oo hogaaminay Hiraql dagaalkan wuxuu socday ilaa 4 bari iyo 3 habeen guusha muslimiinta ay ka gaareen dagaalkani wuxuu soo afjaray Farisiyiinta awood ay ku lahayn dhulka Ciraaq iyo sidoo kale dacwadii islaamka inay fido waxaana islaamka qaatay 4,000 oo ciidamadii Rustum ka mid ah dagaalka markuu dhamaaday si toos ah 15 Shacbaan 1294 hijriga kuna beegan 25 Agoost 1877 hogaamiyihii ka mid ahaa dawladda Cuthmaaniyiinta Ahmed Mukhtar Basha ayaa wuxuu ka guuleystay ciidankii Ruushyaanka dagaalkii Katkalar
wuxuuna ka helay sultaankii dowladda Cuthmaaniyiinta Cabdilxamiid الثاني inuu u bixiyo naaneysta Ghazi karaameen lagu karaameynayo guulaha badan uu ka soo hooyay ciidamada Ruushiyaanka 23 Shacbaan sanadka 13 Hijriga kuna beegan 22 Oktoobar 634 miilaadiga waxaa dhacay dagaalkii Al-Jisr ama dagaalkii Bridge ama buundada waxaana lagu bixiyay dagaalkan magacaasi ayaa dagaalkan ayaa wuxuu ka dhacay meel webi waxaana u dhaxeeyay ciidamada muslimiinta iyo Farisiyiinta buundo ama Bridge wuxuuna u dhaxeeyay dagaalkan ciidamada muslimiinta uu hogaaminayay Abi Ubayda bin Mas'ud al-Thaqafi iyo kuwa Farisiyiinta waxayna ahayd dagaal aad u xanuun badan ay ku shahiideen ilaa ku dhawaad 4000 dagaalyahan oo muslimiin uu ka mid ahaa hogaamiyahooda Abi Ubayda ciidanka ka hortiisa dagaalka intuusan bilaabin ay ahaayeen tiradooda 8000 ee micnaheedu noqonayso kala bar ciidankii muslimiinta inay shahiideen kadibna Amiir Abi Ubayda markuu shahiiday hogaanka ciidanka waxaa la wareegay Al-Muthanna bin Harith oo kaliya u soo hartay 2000 dagaalyahan dagaalkan muslimiinta si daran ay u dagaalameen laakiin wax guul kama gaarin iyadoo ciidamada badankiisa ay ku shahiideen dagaalkan kuwa kalena ay webiga ku khariqmeen kadibna hogaamiye cusbaaye Al-Muthanna bin Harith uu gurmad ka dalbaday khaliifkii muslimiinta Umar bin Khattab oo aad uga xanuunsaday kana u siisay jabkaasi muslimiinta gaaray kadibna muslimiinta xamaasad geliyay ka gadaalna ciidamada muslimiinta ay soo rogaal celiyeen jabkii gaareen ay u bedeleen guul cusub oo ilaa ay Ciraaq dhan ku furteen